السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ومد الصوماليات إيجا قدوم السلام آدي آدو قيمة بدن سلام تسكدب سيداد أكتهين مالمهان مقالة نيروبي وحاكا السعودة دبن لوردقايا دولد الصوماليات دبن لوردقايا oo ay u dhigayso axmaaro iyo wixii la halmaalo iyo shisheey kaalkaal runtii dadka Soomaaliyeed mar walba markii ay talaabo horumar ay qaadaan waxa Ilaahay ka soo dhax saaro kuwo oo Ilaahay aysan aqoon allihii abuuray aysan aqoonin khaymul wadaniin ah oo danta dalkan ka shaqeynaynin ayaa Ilaahay ku imtixaamay dawlad kastoo dhalato kuwa noocaas oo kale gabre ninka la yiraahdo markii karaamadiisii iyo dadnimadiisii muqdisho gudaheedii dawladdii Soomaaliyeed meel ay soo saartay oo meel bannaan ay fariisisay siyaasadii Itoobiya ay wadatay la fashiliyay rag baa maantayto u durbaantumaayo oo Nairobi u fariistay oo gorgortamayo sidii dawladdan jalaafo looga dhigi lahaa sidii dawladdan Soomaaliyeed ee qaranka ah oo shacabka doortay madaxweyne Farmaajo hogaamiyaha u yahay loola dagaalami lahaa ayaa lagu talagalay qolooyinka hawshaas watana waa nimin qabiil ahaan isu bahaystay waa qabiil waya ma ahan arrintaas ayada ah waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed lagu iftiimiyo halkaas waxaa ku shiriyay raggan ayaga ah maskaxadooda ayaga ma lahan cilmigooda ayaga ma lahan waa niman lagu danaysto lagu qaraabto yacni noqday shisheey kalkaal oo aqligooda aanan shaqaynaynin waxaa meesha ku biilo isugu keenayna waa gabre iyo wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya labadaas nin baa meesha ku hayo raggaas ayaga ah waxay doonayaan in ay la dagaalamaan ama ay dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed inay qalqal geliyaan bay doonayaan shacabku waxaan faray horta la sheer garay barnaamijka hala sheer gareeyo Soomaaliya hala sheer gareeyo waxay doonayaan dalkan oo dhibaatada markuu ka baxay oo wadadii horumarka cagta saaray wadadii isbedelka dawladnimadii iyo sharaftii ummadda markay soo laabatay ayaa waxay maantay to go'aansadeen inay yacni dalkan ay jalaafay u dhigaan oo wax allaale wixii heshiisyo madaxweynaha soo galoo dhan inay fashiliyaan hawsha madaxweynaha uu wado in la hor istaag ayaa la doonaya ayadoo loo adeegsanayo qaab qabiil kicin raggaas ayaga waxaa hormuud u ah fiqi ninka la yiraahdo oo ka soo jeedo gobolada dhexe fiqi waa taqaanin baan u malaynayaa hebel fiqi ninka la yiraahdo ninkaas asiga ah Cabdiraxmaan Abshakuur oo taqaaneen oo asagana gobolada dhaca ah oo badda Soomaaliya meesha ay gaartay aad ogtihiin heerka ay gaartay badda Soomaaliya kiiskeeda meeshu yaalo aad ogtihiin ayaa kamid ah waxaa kamid ah ragga meesha ku sirsan Cabdirashiid Xidig ninka la yiraahdo Xidig oo cadeystay inuu Itoobiyaan yahay kuna jiro xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed inuu Itoobiyaan yahay Itoobiya inuu adeego anaka Itoobiya kuma xadgudbeen laakiin hadday nagu soo xadgudubto waxaa muhiim noo ah inaan wixii jiro aan sheegno Itoobiya waxay noo khaldan tahay waan cadaynaynaa waan sheegaynaa waa xildhibaano Itoobiya u yeeratay hoteelka waxay habeenkii ku soo hoydaan 4 hotel oo Nairobi ku yaalo sababtoo ah
dhaqaalaha muqdisho loogu soo diraa waxaan leeyahay dowladda qaranka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari waqtigaagii baa la joogaa timekaagii baa la joogaa oo ahaa raggaas iyaga ah adigii baa gudoomiye baarlamaan ah dhaqaalaha aad ugu soo dirto magaalada muqdisho waa in si degdeg ah loo joojiyaa shacabka Soomaaliyeed waa mudaharaad degdeg ah oo jooga Nairobi shacabka Soomaaliyeed Nairobi jooga barnaamijkaas waxaa dhabarka ka riixaya Abdiweli Gaas oo munaafiq ah oo ah qof aanan yani ahdi iyo yani wajiib badan leh diiman fara badan buu leeyahay Abdiweli Gaas diimaha uu leeyahay waa diiman aad u fara badan diin fara badan buu leeyahay diinta Abdiweli Gaas mid la gaari kara ma diimihiis aad bay u badan yihiin wajiib fara badan buu leeyahay raggaas waxa dabada ka riixay Abdiweli Gaas waxa dabada ka riixay Shariif Sakiin Shariif Hasan Sheekh Aadan ayaa dabada ka riixay ma garata waxaan idin leeyahay shacabka Soomaaliyeed dad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u gargaaray baan nahay waxa loo baahan yahay inaad ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay war Allah subxaanahu wa ta'ala baa runta nagu jecel waan iska celin karnaa boqolka xildhibaan oo xidig iyo ninka la yiraahdo xidig iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Abshakuur ku haysta Nairobi raggaas ayaga waa in si degdeg ah loogu mudaharaada waa in la weeraraa meelaha ay ka degan yihiin hoteelada way saddex hotel bay kala degan yihiin Grand Royal Slee qaarkood wadaad iska dhigay waxay degan yihiin Hotel Andalus qaar waxay degan yihiin hotelka la yiraahdo ku yaalo 7 Street ee la yiraahdo magac buu lahaa yani hotelkaas ay degan yihiin ahlu cibaado ma ahan in yaro koobanna waxay degan yihiin Nairobi West bay degan yihiin ummadda Soomaaliyeed Nairobi ku nool kuwa Muqdisho ku nool war mar walba wad mudaharaadaan mudaharaadka maanta waa xaq mudaharaadka maanta xaq yahay waa xaq oo maantayto waa xaq in la mudaharaado waxaadna ku mudaharaadaysaan ragga daalimiinta ah oo maanta doonaya dawladdiina oo hadda dhalatay inay hilfaha u qaadaan doonayo waa inaad ku mudaharaadaan waa inaad iska celisaan waa inaad kacdaan waa inaad kacdoon shacab samaysaan ragga boqolka ameesha joogo oo maalin walba intuu diyaarad soo qaato ra'iisul wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia yani meesha iyada ugu khudbeeyo oo sidii Soomaaliya halkaas ninkan farmaajo yiraahdo xaqiisa waa ka soo quusanay Muqdisho meelaha madax gelinan soo weyne bal aawi mercenaries aawi oo uu leeyahay alooshaad u shaqaystayaashiini aawi ee wax qabsad uu leeyahay beent u sheegay waxa loo baahan yahay dawladda inay ka hadasho madaxda qaranka madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo yani muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo baarlamaanka xalaasha Soomaaliyeed markii laga reebo boqolkaas ayaga ah waxa tiin 275 xubnood soo harayso nimankaas ayaga koow waa in la joojiyo dhaqaalaha la siinay bil walba lacagta waa in la joojiyo oo loo dirayo laba waa in lagu mudaharaada waa inaad tustaan dareenkiin safaaradda Ethiopia ku taal magaalada Nairobi waa inaad ku mudaharaadaan horteed waa inaad tagtaan waxaan la hadlayaa shacabka Soomaaliyeed ku nool Islii shacabka Soomaaliyeed Nairobi inteeda kala ku nool shacabka Soomaaliyeed dibadaha ku nool Sweden hadday noqon lahayd baasha la yiraahdo London hadday noqon lahayd meel walba Ethiopia safaarad ku leedahay faragelin qaawan bay ku haysaa dawladdeeni oo noo dhalatay ee shacabkeena doortay waa inaan meel iska saarnaa war haddii hooyada iyo aabbaha uu dhalay oo qabiilkaaga uu yahay ilmo adeer aad tihiin walaalka uu yahay qabaa'ilaba la duubama maanta fiqi ninka la yiraahdo oo u shaqayn jiray dawladda Soomaaliya waqtigii Sheekh Shariif u shaqayn jiray xisbigan ala sheekh ku jiro yani waxa uu wado waa qabiil baaba la safanba beeshu asaga ka dhashay ee gobolada ka dhaxa ka soo jeedo Soomaali waa inaad ka qabataan fiqi waa inaad Soomaali ka qabataan beelaha kale ee kilal ka soo jeedo ama hadday noqon lahaayeen magaalada Muqdisho ka soo jeedo ama hadday noqon lahaayeen Kismaayiil Afmadow waxaan leeyahay
cabdirashiid xidig idinku idinka dhashee soomaali ka qabta odayaashooda dhaqanka waxaan leeyahay waxaan idinkugu baaqayaa cabdirashiid xidig nin etoobiyaannimo caddaystay waayo darhad odibaa soo yani muxuu soo magacaabay bal ha la isku day in xil laga qaadi karo xildhibaanada qaranka soomaaliyeed ha isku dayaan yani qofka beeshiisii ha loo siiyo access uu xilka ugu qaadi karo ugu hayuubin karo ha loo siiyo yani dastuurka waa in dib loo eegaa oo qaranka soomaaliyeed oo la sameeyaa oo yani muxuu ahaa qofka xildhibaanka in xilka laga hayuubin karo in laga qaadi karo ya xildhibaanku waa in xilka laga qaadi karaa waa in xilka laga hayuubin karaa ninka xildhibaanka haddii ay dhici weydo waxa waaye waa isdabayaac un basaan oo kale arrinta ay noqonaysaa waxaan u baahanahay inaan u sheego shacabka soomaaliyeed oo magaalada nairobi joogo arrintan waa inaad ka muujisaan dareenkiin soomaalaay waa inaad ka muujisaan dareenkiin labada nin oo munaafiqiinta horey aan u sheegay cabdiweli gaas iyo shariif sakiin ayaa raggan dabada ka riixay cabdiraxmaan abshakuur ayaa howlwadeen ka ah iyo ninkii la yidhahdo fiqi iyo ninkii la yidhahdo cabdirashiid xidig waa laba gruub oo qabiil ahaan isu baxaystay oo ay doonayaan dowladda soomaaliyeed oo shacabka doortay in ay ka been sheegaan waxaynan dowladda ahayn inay sheegaan bay doonayaan ma garat muqdisho waa inuu mudaxaraad ka dhaca magaalada muqdisho hoteelada ay degan yihiin inaysan soo degi karin raggaas ayaga shacabka war shacabow dalkan idinkaa iskale war dalka shacab baa iskale dowladdan shacab bay u adeegaysaa sida madaxweynaha uu sheegay dowladdan shacab baa leh raggaas ayaga tuugada ah oo munaafiqiinta ah oo maanta markii soomaali ay hagaagtay ay arkeen oo dalkii wax loo qabtay sharaftii ummadda soomaaliyeed ay soo laabatay ayaa maanta waxay doonayaan qabiil ahaan inay nagu majaxaabiyaan waxaan la hadlayaa madaxweynaha gobolada dhexe ee la yidhahdo ninkii la yidhaahdo ducaale geele ninkii la yidhaahdo fiqi axmed ducaale ninkii la yidhaahdo oo mar dhow la doortay gobolada dhexe ee galmudug waxaan leeyahay war nin walba eygiis ha qabsado nin walba eygiis ha qabsado nin walbow eygaagii qabso eygaagii qabso eygaagi inaad ceshita isku day kuwan waa eeyo eygina sidiisaba waa yani muxuu ahaa wax allaale wixii loo diro ayuu ku shaqeeyaa keliya eyga waxaa waaye xaaraan waaye eyga waxaa waaye waa wax yani waxyaabaha ugu liito xayawaanaadka ilaahay abuuray buu ka mid yahay ruux walba eygaaga cesho wakhtigii eeyaha waa la dhaafay wakhtigii eeyaha kuwaan aniga eeyaan ku tilmaamaya ma aha dad kuwa maanta meesha intay isugu imaadeen waxay qaldi karaan ay qaldeen intay nairobi hoteelle ay jaarteen oo ummadda soomaaliyeed yani muxuu ahaa inay maantayto tallaabadii ay qaaday inay dib u soo celiyaan ay doonayaan waa in laga hor imaadaa waa in laga hor imaadaa war shacabka soomaaliyeed baan la hadlaya war shacabka soomaaliyeed baan la hadlaya war yaa damiir yeesha war yaa dadnimo yeesha war yaa isku daya inaad iska celisaan tuugada burcadda ah oo isbahaysatay oo maantayto nairobi gudaheeda ku shirsan waa in gacanta loola tagaa waa inaad gacanta ula tagtaan waa shacabka aawi dhallinyaradii soomaaliyeed oo damiirta lahayd markii south africa yani 2 ruux 4 ruux laga dilo waad mudaxaraadaan nairobi gudaheedii si xuriid baad ku martaan waryaa waa inaad qaban kartaanoo dadnimo isku rahaysaan tanaa ka daran meel lagugu dilay kan ku dilay iyo kan aan yani muxuu ahaa midka ku dilay ayaa daran yani ninka ku dilay iyo ninka khaa'inimadaad iyo waxyaabaha dalkaagii inuu yani muxuu ahaa cadow yani gacan u geliyo doonayo waxa kuu daran midka cadowga siyaasiga ah ayaa noogu daran kana dilaayo xabadda noo wato waxaa noogu daran khaa'inka eeyahana noogu daran eeyahan waa inaan meel iska saarnaa ma garat aniga nin walbo lagu adeegto waxaan u aqaanaa ilaahow muu walaalkay noqdo waa eey walaalkay ila dhashay muu noqdo waa eey ma garat eeyna faa'iido u dal iyo diin iyo dad u keenay habyaraate malaha waa in shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan barnaamijkaas isaga ah ay ku mudaxaraadaan dowladda soomaaliya waxaan leeyahay tallaabadii oo lidinkugu talagalay qaada tallaabada aad xaq u leedihiin qaata waajibaadkiina fushida madaxweynaha qaranka soomaaliyeed waa inuu ka soo saaraa bayaan cad shirqoolka nairobi ka socdo waa in dowladda kenya lagala hadlaa inaan loo ogolaanin inay nairobi gudaha ku shiraan waa nimankii sheegay kaalkaalka ah dowladda kenya safaaradda soomaaliya nairobi waxaan leeyahay safaaradda hil gaar ahaaneed baa kaa saaran safaaraday safiirow aniga magacaaga ma garanayo xil gaar ahaaneed baa kaa saaran waa inaad ka hor tagtaa sharta nairobi gudaheedii dowlad baad wakiil u tahay dowlad dhan baa afkeeda ku hadashaa waa inaad wasaaradaha quseeyo waa inaad arrimahaas aad u gudbisaa
wasiirka arrimaha dibadda sidii loo malaynay ma noqonin ninka la yiraahdo Yuusuf Garaad wuxuu noqday nin wax matara ah waxaan leeyahay Yuusuf Garaad hawshaadi waay ma garad BBC baan u shaqeyn jiray madax baan ahaan jiray isaasan ahaan jiray ma shaqeynayso Yuusuf Garaad hawshaadi way fadhiga ka kac wasaaradda arrimaha dibadda Kenya si degdeg ula xiriir madaxweynaha Kenya in si degdeg loola xiriira oo loo sheega raggaas ayaga in laga hor istaago shirarka oo shirqoolada khiyaamo qaran bay wadaan nimankaas ayaga dawladdu waa inay si degdeg ah yani muxuu ahay wax ugu qabata loo baahan yahay oo waajibaad